waxaan sida caadada ahaydba ku furan doonaa aayadaha qur-aanka insha allahu tacaala waxaana marka kusoo dhaweynaa oo noo akrin doonaa macalin xasan marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay macalin xasan kusoo dhawaaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واتبع ملته القوم إلى قيام الساعة وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. marka ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad leh dhammaan waa in salaamay kolley assalaamu calaykum waraxmatullahi kolley saad maqlaysa islaamta islaamka kadib kasoo qaylgalayaasho dhan qulumay dhan odayaasha iyo dhan maaragta hooyooyinka iyo inta maaragta la halmaashay dhalinyarta kulli waa salaamantihiin. taaniyan waxaan jeclaystay ama lee wakiisho inaan laba kelimo oo muxaadaro oon dheerayn aan ka orahado halkaa maadaama dad islaam nahnay mar walbana haddii in lais xasuusiyo waa muhiim. ilahi wuxuu leeyahy fadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin laakiin waanada waxay anfaci buu ilahi leeyahay mu'miniinta sax. muslimka marka qof inaad xoogaa yar tamashleeyo xoogaa hadduu alla kuu samato ogol yahay iska wardiyo xoogaa dhaqamo markaa iyada a diinta islaamka aan diidaynin inuu la yimaado ma diidana diintu laakiin adiga mar walba inay noqoto diinta iyo ku dhaqankeeda ama raacitaankeeda midigto liannaha waa lagu su-aali mar walbo kullukum raacin wa mas-uulun can racyatihi kullukum raacin wa mas-uulun can raaciyatihi yacni dhammaantiin mas-uul baa tihiin waana liin su-aali wixii liin raaciyey. walamiiru raacin ninka madaxweynaha ama amiirka ah waa raaci waa mas-uul waana la su-aali wixii la raaciyey. warajul raacin fii ahlihi wa mas-uulun can raciyatihi ninka waa raaci wuxuu raaci ka yahay mas-uul uu ka yahay la jir faamilkiisa ama ciddiisa ama ehelkiisa iyo intuu maaragta waman yacuulu bih wa mas-uulun can raaciyati yowma alqiyaama waa maalin aan la dhaqaaqay maanta iyada bal u fiirsado maanta la su-aalay waa goormaa hooyo ma jirto waa meel saan oo kale hooyo ma jirto aabbo ma jirto taana maskaxku waa muhiim. walmar'atu raacin fii beyti zawjiha wa mas-uulun can raciyatiha u fiir xadiiska nabi alayhi salaatu wasalaam haweenta ama gabadha waa mas-uul waa raaciyad waxay raaciyad ku tahay
guriga ninkeeda yani waa familki way guriga waa familki wa mas'uulun can raciyatiha maalinta qiyaamo waa la su-aalayaa marka aayadka ilaahi wuxuu lahaa subxaanahu wa tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu ha raacin walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu aayadda waxay diidaysaa sulufaad iyo kuturkuteen iyo waxaa la yiri iyo wax kastoo islaamka dhaawacaya iyo akhlaaq iyo nidaamkaas oo dhan bay aayadda diidaysaa walaa taqfu ha raacin maa laysa laka bihi cilmu wax aan cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq iyo diin aan kuugu jirin wax faa'iide aan kuugu jirin ha raacin maxay tahay can qiila waqaala wa idaacat lmaal wa katratu su-aal waxaa la yidhi maxay tiri wuxuu yidhi waa la diiday aayad waxay diiday wa idaacat almaal maalka oo la layaa xoolaha hantida maalku ilaahay ku siiyey wa katratu su-aal su-aal fara badan waa meesha soomaaliya tira ma aragta su-aal saas oo kale ma aragta su-aal fara badan isi aan dharag lahayn camal walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ha raacin waa waxaana rogay oo macnaha maaragtay lasu kohonayo oo hadalka waa hadal walba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waanadan waxaan doonayaa waa la fahmaya soomaaliga sax fadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin ama cerka lagu geeyo ama dhulka tag ama daaraha waaweyn si tagoo kale deg ama laakiin su-aasha waxay imaadaysaa halkaa booska fadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin ninka mu'minka waxa ku anfacayo oo kaliya waa intaa iyada hadda la sheegayo aayadda aan ku noqonay suurat lisra aayad ku jirta ama subxaana aladii asra saad u taqaanaan walaa taqfu ha raacin maa laysa laka bihi cilmun waxaan cilmi iyo nidaam iyo akhlaaq iyo diin midna kugu jiro maxaa dhaca ina samca maqalka walbasara ish ama arag walfu-aadu qalbiga kullu ulaa'ika dhammaantood kaana canhu mas-uula allahu akbar wixii dhegta ku maqashay horta waa lagu weydiin maxaad u dhegaysanayso because maxaad dhegaysatan maaha wixii aragga ku aragtay wixii kugu dhaca aragga lama diidin nabiga calayhi salaatu wasalaam ama diinta waa masaamacatay ra'ya alcayn waxa kow aad isha ku dhufatay oo xumaan ah walfu-aad qalbiga haddaad digta kawa hadal xun baad maqashay leanna hadalka marka lagu diidayo waxaa ka mid ah hadal xun ood kahoni inaad maqasho kadibna qalbigaadu cudur qaado waxyaala waa diinta islamka bal u fiirsa diinta islamka waa saliim maasha allah iyo araggu qalbiga waa saddexdaan ka dhiman alla saddexdaan ka dhimanay wey waa dhegtu waa qalbigu ina samca walbasar fiir waa la israaci labada waa isku maarata waa isku eri fiir walfu-aad qalbiga kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uul laa yazaalu qadamaa cabdin bayna yaday illaahi xataa yus'al can arbac inta kale annaga hadda maasha allah waan fahmaynaa inta kalena hadii inu ilahay fahansiyaan maad u rajaynayna insha allah khayr waa khayr khayrkan cid walba macal geeda dhirtaas anfacaya iyo maar dhismaha bal u fiirso marka maadaama wixii lisu su-aalayo laa yazaalu qadamaa cabdin bayna yaday illaahi xataa yus'al can arbac sulufaad iyo macnaha maarta waxa la yidhaha tamhiil sugud iyo saaraytay yaysan ku daad raacin addoonka ka suuli maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisu sidii birtaa ma aragta microfonka xataa yus'al can arbac ilaa afar laga su-aala u diyaar garooba afar ilaa laga su-aala ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi mahayso hooyo iyo aabbow ima jirto hal cunug kaal markas maqnaada maxaad falay telefoon ka waran ya ad iyagu cad hebel waa iska qaban waaya hebel i wacsaad u leed intaanadaanan dul baraynaa intaan meesha fada waa laga caawiya wacnaa tira laa yazaalu qadamaa cabdin bayna yaday illaahi xataa yus'al can arbac ilaa afar laga su-aalo labada gaclood hadda waa dhaqdhaqaaqa ma dhaqaajinayo kolay ay sakay daba maraan waa laga yaabaa can cilmihi
ماذا عمل به علم جيسي دين أوبرتك ما قل يصعد بو هاي انتو وجيت هيه انتو وجيت هيه هروصع هيه قضاء وصع ميو هاي مثلا بقول استريد منه صعد تو استريد صعد ما ايه مثلا جلق انت هيه انت هو ماشي ها انت ها انت انا اشتغل ها انت هو عالمك وعليك علم بعد ما يعطيك برت الله اكبر بتغنى انت تجيس محاكو قبط أحيانا سؤالي وبهنت عن علم ماذا عمل به وعن عمري ماذا أفنى به عمر قاعد يحطوا ميس ما قدر تا لبعضن طبعا يزيد لبعضن صدر كنت لحد الطلبات حطوا غلط مركو إلهي كسؤالي وكأبيه نبي عيسى عليه السلام ضربنا معنا إلى عابدان أما وحشك شيء قيامة صلى عيسى دكتور عليه السلام بهندنا اللي ويدينه لليه وردت كان ما أدا يجيل تلفون دي سلفات تكون جرتان جوجية بارك الله فيك دقيقة سلطان ما ينفع كنت هني شيء ورما أدا يجيل النبي عيسى عليه السلام أديه هاي ردت كان عابده قال سبحانه عمران ما هتكون ميز الشيخ جماعة ما كنا ميز حجاب ما كنا ميز waxaan oo batay maxay aroosyada markii tagayno markii maxfalaadka tagayno ilaahay waxa soo meelan garbasaar ayaa xijaab ma xijaab iyo akhlaaq iyo nabad cimrigaad saadiyash ilaahay uu ka og ma jamaa ma sakan qoys u socdaan kan qoys mid ka qoyntiisa dad u socoto hada wuxuu ka tuuraya aan ka soo noqosho lahayn kan qoyntiisa kan taqaana kan inaad qoys dad ku tala gasho markii qoysana ku kala aad qoyso angagadaas ku soo naqa aakhirada angagay ya wa an malihi min ayna iktasabu min ayna anfaqa وهذا كان اللي سوق ايه بقول لك maalkaad inta ka keento maal meesha uu ka soo bilaabo ka keento iyo meesha aad ku bixiso inaad adiga isiiso abaayo siiso hooyo siiso adeer siiso awoow aad siiso intuu ka imaado kama fiicno 15,000 ay taalo haye 5 gurina waan dhistay war adigu hebel maxaad haysaa yaa abba ana ilma biilkooda ka badan laa soo kama fiicno $10 mu cunto ma qabowdaha war salaada tuka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo sheegaynaa marka waan dheereeyay diintana waa muhiim waxaan soo sheegaynaa dad islaam baanan ikhwaanna haloo soo noqdo kitaab markan anaga diinta annada iyo nalaamka aan saxna ayaa ummadda la joogna iyo ummadda dariska annaga aan la noolnayna baan wanaag iyo khayr iyo baraka gaarsiinayna marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha nasfugo sugnaashana ha lagu duceysto diintu ku dadaal sulufaad qolayba dhamaan mahay diintu ku dadaal insha Allah ta'ala iyo raayko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وما أريد أن أخالف بلا ما أنهاك عنه إن أريد إلا الإسلام استطعت ما توفيقي إلا بالله معنى هذا طيب ما الدونية وحين إنكر ريابي إلا أنت أمره من الدونية وناك إيه معنا خير بركة موبي أنت مع إلهي أولا وده صعد الله الوهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى شيخة آدي أدب أمهات سنهاي رب سبحانه وتعالى أجري حسنات هكسية آيدي قرآن كي محاضرة دبا إن شاء الله تعالى ونودين لهن لكن حلقي أو هول كي ساعة وحبا نقص عدو وحن اسكوا آدينينا حلقي دبو نوغا دعي أو دبان كفروني مركز هادرتها إن شاء الله تعالى يانسوا قابلني لكن وحكا وناكسنا مالها إن محاضرة سيدة جيسنا انت كدب ان شاء الله تعالى وحان مرلواد ددنا ادعينينا ان شاء الله تعالى رب سبحانه وتعالى عافيه قدوميه كومونتيغان oo xataa aan isku daynay inuu xagga qadka telefoonka ka soo qayb gala oo ay noo suurtagali waysay inuu rabbi subhanahu wa ta'ala caafimaad qeyr qaba siiyo inta kadib in sha Allah ta'ala fadhigan quraxda badan oo caawo u fadhina iyo fadhiyo fara badan wuxuu ahaa rag ka soo shaqay oo hormuudku u ahaay wuxuuna ahay xalfadan dadka loogu tirigalay caaw in loogu mahad celiyo ilaa iyo 10 sano ayuu mas'uul ka soo ahay community-ga waxyaalo badan oo maartay waxyaalaha uu soo qabtay waxyaalaha uu ku dadaali jirayna waxa kamid ahayd isku xirka ummadda inaysan ummadda dhaqanka aysan ka tagin inay ummadda maartay iska warqabaan
in had iyo jeer maaragtay bishiiba mar la isu imaado oo ama la duceysto ama maxay ahayd meetinga noocan oo kale uu dhaca dhanka dhalinyarta in isboorti iyo waxyaalaha loo sameeyo oo la mashquuliya muhiimadaas marka waxay ahayd in dadka Soomaalida maadaama aan dalkeena ahayn aan imaadnay dhaqanka aan lahayn inuusan naga lumin diin ahaan inaysan naga lumin ragga ka soo shaqeynay oo hormuudku ahay buu ahay haddana si wanaagsan 10 sano kadib dhalinyartii asaga la shaqeynaysay oo uu wax baray oo maaragtay systemka community-nimada soo bartay aqoon ahaana la isiri waa xilliga ay qaban lahaayeen ayaa haddana si wanaagsan intii isugu yeereen dadkii asaga uu hormuud ku ahay inta la shaqeynaysay ayay si toos xilka ugu wareejiyeen oo ay dhaheen annaga shaqadanada waxay u badnaan jirtay bulshada iyo dhaqankinagi iyo maaragtay ay u badnaan jirtay marka community-ga hadda wuxuu u baahan yahay kor in loo qaado maaragtay lagu xiro systemka dalkan uu ka jira wax ku xiri karana waxaa ka jira dhalinyarta jaamacadaha dhamay ama aqoonta leh marka sidaa darteed ayaa si wanaagsan oo sharaf leh oo nin la tartamay aysan jirin nin weydiistay aysan jirin ayaa haddana intay isugu yeereen dhalinyartii ayay xilka ku wareejiyeen marka xalfadan caawa waxay ku socotay mahadnaq loo mahadnaqaya community-ga odayaasha ilaa 10 sano ka soo shaqeynayay oo quraxdan inay Soomaalida isu imaado ka soo shaqeeyay marka nasiib darra caawa odaygu uu naga xanuunsaday kamanuusan qayb galin laakiin waan jeclaan lahayn inuu maaragtay qofka noo furo uu noqdo oo maaragtay uu nooga sheekeeyo community-ga heerarkii uu soo maray laakiin insha Allah taala dadkii la shaqeynayay ayaa jooga marka insha Allah taala rabbi subhanahu wa taala waxaan weydiisanaynaa inuu caafimaad siiyo intaa kadib waxaan u yeerayaa xibnaha maaragtay loo mahadnaqaya oo community-gan heerka soo gaarsiiyay sababtoo nabi sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa ayaa wuxuu ahay laa yashkuru Allah man laa yashkuru naas qofkii aanan dadka u mahadnaqin oo waa mahadsantahay aan dhihin Allah subhanahu wa taala uma mahad celinaya sidaa darteed xibnihii la soo shaqeynayay oo heerkan community-ga la soo gaarsiiyay si sharaf leh ayadoon ayaga intii wada fariistay ayna maskaxdooda ka maaxatay inay heerkan gaarsiiyaan xibin kamid ayaan u yeeraa insha Allah taala oo dhinacna duqi matalaya dhinacna insha Allah taala xil wareejinta iyo isbedelkaas inuu dhacay noo xaqiijinaya marka waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah taala Maxamed Ibrahim Daahir insha Allah taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله إله بام هذه السكلة الله مسلمين إنك يلي caafimaad na siiyey cimri dheer na siiyey allaha ayay u sugnaatay mahad dhammaan kadib waxaa mahadde xafladdan cawada halka ka dhaxayso dhalinyaradii isku xilqaantay ee inoo samaysay isu keentay dadka intaa la eg cawo ayagaa mahad u sugnaatay waxaa kaloo u mahad celinhayaa insha allah dhammaan inta ka soo qayb gashay culuumadiin aqoon-yahana dhalinyaro haween dhammaan waa idin mahad celinayaa waxaan idinku mahad celinaya idinka oo waqtigiinii qaaliga ahaa u soo horay imaaday xafladdaa dhacaysa u yimid ayaa dhammaan idin mahad celinaya intaas kadib waxaan rabaa inaan 2 kelimad ka yiraahdo xaaladda community-ga Somali Community Association of Queensland oo ka ahaa president Iftiin Ibrahim secretary Maxamed Ibrahim iyo treasurer Roble Ibrahim dhammaantood in ay maxay ahayd in muddo ay soo wadeen community-gan laga soo bilaabo sanadkii waxaan filahayaa inuu 10 jirsaday sanadkii 2011 laga soo bilaabo October ilaa iyo October 2021 marka waa inta ayaa ka soo wareegtay waxaan filahayaa inay 10 sano ay u buuxsantay waa 2 marxaladood marxalad ah in ay maxay ahayd uu 10 jirsaday community-gii oo 10 sano gaaray intaana ay ka soo shaqeynayaan raggaasi hadda magacaabay ay ka soo shaqeynayeen
kaligoodna aysan ahayn dee rag badan odayaal badan ay la shaqaynahayeen ayna ku dadaalahayeen mar walba wanaagga ixtiraamka iyo isdhexgalka iyo wanaag ixtiraamka bulshada kale mar walba ay ku dadaalahayeen marka ayagoo haddana aysan waxba muxuu ahaay hadal kale iyo dee aysan imaanin raggii la shaqaynahayay ee ugu yaraan 5 sano soo shaqaynahayo oo ku shaqaynahay volunteer oo howlaha sii waday ay si tartiib ah ay ayagii dhalinyarada ahaa ee la hadleen kadib dhalinyaradii dib ay isugu baxeen oo hal meel inay tageen soo wada tashadeen oo ayagina la yimaadeen in ay management soo sameeyeen managementkaasna uu shaqada bilaabay marka ilaa iyo hadda waxaa weeyaan bishii hadda September oo hadda soo dhaafnay bay bilaabatay muxuu ahaa ayaga lagu wareejiyey marka cawadana waxaan rabnay markaan in aan cadayno bulshada kale dhammaan maadaama annaga aan wada hadalnay oon isku afgaranay in ay sii maanad gareeyaan ilaa ay waqti inta ayagana dal ay ka gaarsiin hayaan heer shalay markaan bilaabahaynay annaga waxaan kasoo bilaabnay 0 maantana waxa weeyaan waxyaalaha lagu higsan kara ayaa jira kolay dee bini aadanka isku mid baa isku aragti maaha qofba siba wax u arkaa laakiin rag xogogaal ah ama dad xogogaal ah ama haween ha noqdaan ama rag ha noqdaan kolay way joogaan ayagana way ka hadli doonaan hadduu ilaahay idmo marka arrinkaas ayaan jeclaanay maadaama saa ay tahay in aan caddayno in laga bilaabo waqtiga xaadirka ah ay ka shaqayn doonaan ay hawshiisii wadi doonaan maamulka cusub loo sameeyey Somali Community Association of Queensland marka kolay hadal badanna uma aan soo gal inaan intaas aan caddeeyo anigoo ku hadlayo magacii community-gii Somali Community Association of Queensland waxa weeyaan dee kolay waqtigii ilaa hadda bil bay siimaysaa hadda waxa in lagu tilmaamo waa ex gudoomiye iyo ex treasurer iyo ex secretary maadaama kuwa cusub la sameeyey marka ayaga aan ku hadlayo magacooda ayaan caddaynayaa cawada in maamulkii lagu wareejiyey maamulka cusub kolay ayagana way joogaan caawa way ka hadli doonaan hadduu ilaahay idmo marka dee hadal badanna uma soo gelin intaasaan waxaan rabaa inaan caddeeyo waadna mahadsantihiin dhammaantiin inta kasoo qayb gashay mar labaad iyo mar saddexaad hadalkaygana waxaan kusoo gabagabeynayaa 2 kalimatiin oo inaan iraahdo aan jeclahay dadka dhexdiisa aan ka iraahdo caawa xafladda ayaan jeclahay management community-ga cusub kolley howl adagna way sugaysaa muxuu ahay waddo dheerna way sugaysaa kow midna waxaan leeyahay bulshada kale ka tirsan maamulka community ka tirsan ama Soomaali oo idil waxay u baahan yihiin dadkaasi in garab la siiyo la taageero in wax lala qabto lala shaqeeyo kolley ayagana waxa ma qaban karaan kaligood dee horaan soo aragnay qof kaligii waxa ma qaban karo hore Soomaali waxay u tiri fari kaligeed fool ma dhaqdo far kaligeed fool ma dhaqdo hore Soomaali u tiri marka waxaan dhihi lahaa wax lala shaqeeyo kolley annaga haddii aan nahay management community X waxaan diyaar u nahay in aan dib ula sii shaqeyno oon la sii ogaano ayaan jeclahay hadduu rabbi idmo idinkana waxaan idinka codsanayaa sidaas oo kale hadalkii waan dheeriyey waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى aad buu u mahadsan yahay Maxamed Ibrahim oo kamid ahay maamulkii hore oo xilka wareejiyay xilli badan ka soo shaqeynayay horumarka iyo inay heerkan soo gaarsiiyaan community-ga marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah taala intaas kadib xalfadana sideen in sheegay waa mahadnaq loo mahadnaqaya groupkii hore iyo insha Allah taala waxa kale loo baahan yahay in la imbara groupka dambe oo cusub qayb maartay xibnaha sida kala yihiin iyo wajiyadooda ilaa maadaama aad ku hore garanayseen marka insha Allah taala waxaan u yeeri doonaa hadduu rabbi ka raali noqdo Faisal waxaan u yeeri doonaa Farxaan insha Allah taala ayaa wuxuu sameyn doonaa barnaamijku inta dambe asaad daadihin doono oo aniga wareejinaya kadibna insha Allah taala wajiyada iyo dhalinyarta iyo wixii ka dambeeyo in bari doonaa dad badan baan ogahay insha Allah taala inay hadal diyaar u yihiin waxaan sameyn doonaa bal inta aan awoodno inaan dadkaas ka hadashiino oo hadalkii qayb ka siino si ay ayagana maaragtay fikradooda iyo hambalyada ugu qayb ay ugu dhiibtaan marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا دمانتي مرتشرف تماشى سكوت تمد كل ساب مقلسين وحلو مرتقى على مانتا ماشى حلفدن وحن لي حرسار إن شاء الله إن قيب قاعدة حق دادهنتا إن شاء الله وحن سور دوينيا إن شاء الله أنت كلا أو هل دون تمانتا intuu ilaahay naga gaarsiiyo insha allah waxaa ugu horeyn doonta insha allah dhalinyarada hadda firfircoon oo xilka diyaarka u ah iyo guddoomiyahooda insha allah ayagaan kusoo dhaweynaya marka hore stageka si ay wixii kolley arrin ah ay diyaar u yihiin inay qaban doonaan haddii ay markaa rabaan insha allah inay noo sheegaan annagana insha allah wixii dardaaran iyo tala ahna adinkaa laydinka rabaa kulley martii dad badanaa lagu casuumay meesha insha allah ayagana waan sii sheegi doonaa inay isku diyaariyaan si hadhow meesha markay soo istaagaan aysan surprise ugu noqonin insha allah dad waaweyn oo khiyaar ah ayaa jiraan meesha lagu marti qaaday sida adeer darmaan insha allah jaaliyadda guddoomiyaha guddoomiye mise haliyey axmed maxamuud iyo leyla haddii lacala ay joogto insha allah maama cabdiye axmed insha allah intiina dadka meesha lagu marti qaadi doono ani lii xirsaaray inaan sheego weeyaan isku diyaariya haddii dheeraad inaad meesha stageka imaadaan wixii talo iyo tusaalena inaad iyo taageero insha allah aad u jirisaan dhalinyaradan talentiga oo maanta diyaarku inay xilka ay guddoominimada qabtaan iyo maaragtay Somali community dhammaantood marka waan ku soo dhaweynayaa aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaad. soo dhawaad guddoomiye Aysan. بسم الله الرحمن الرحيم. marka koowaad xurumada waxgaradka hooyooyinka dhammaan martida sharafta leh dadka halkan ka soo qayb galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan rabaa inaan ku bilaabo in aan xuso dadka community-ga halkan soo gaarsiiyey meesha uu maanta joogay ee quruxda badan. si qaas ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo adeer iftiin ibraahim. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo adeer maxamed ibraahim iyo rooble ibraahim, saddexdaas ruux oo si adag ugu soo shaqaysay in caawa halkan aan isugu nimaano oo maaragtay community-geena uu horumar u gaaro. aniga marka koowaad magacaygu waa faysal axmed salaad. waxaa ila taagan hogaankanaga cusub secretary-ga asad cali. sidoo kale dhinacayga waxaa taagan aweys xasan mooge ood wada taqaaniin oo ah guddoomiyaha xagga maaliyadda. marka annaga waxaan jaaliyad u nahay, waxaan hoggaan u nahay, waxaan dhexdhexaad u nahay qof kasta oo Soomaali ku hadlo oo financial membership ah inaan ogol. mar walbana waxaa naga go-an inaan dadkayaga u shaqayno, waqtiganaga aan gelino, dadaalkeeda aan gelino, waayo arrimaha bulshada ma aha wax sahlan. laakiin saddexdayada iyo dhalinyaradana weheliso waxaa naga go-an in aan dadkayaga u adeegno, waqtiganana aan gelino insha allah. marka waxaan kusoo dhaweynayaa asad inuu maarta isagana magaciisii iyo labeer u yiraahda kadibna aweys. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعيق وأسد علي محمد وحانا هاي كحيجين كفيصل أما سكرتري كسومالي كوميونيتي أوف كوينسلاند. مركو هرو وحانو مهد عليني أدمان مرتي شرفت كسوق يبقى شيء حفلة شرفت بدن. مركا لبعضنا وحانو مهد علينا يا odayaashii hore ama madaxdii hore ee sii waday community-ka ee heerka soo gaarsiisay. waxaana leeyahay waa mahadsantihiin. waxaana ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee ay u wareejiyeen xilkii. marka saddexaad waxaan u sheegi rabaa bulshada Soomaaliyeed in aanu u noqon doono dad oo wada siman inta Soomaali oo dhan
ma doonayno inaan soomaali kala qaadno, waxaanu u shaqayn doonaa si fair ah. wax walba loo baahayayna waa nagala heli doonaa insha allahu tacaala. teeda kale waxaan u baahannahay siduu adeer maxamed hore u sheegay, annaga keliya waxba ma qaban karno, waxaan u baahannahay garbo nala duulo ee aan si wada jir ah ku wada shaqeyn. marka waxaan u baahannahay garabkiina, la-aantiina waxba ma qaban karno. haddana waxaan ku wareejinaa insha allahu tacaala walaalkii aweys xasan cad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارتا كسو قريب شباش أدبان إيه سلام يا مقعيق وأويس حسن هروا إيه تقانين وحان ربعينا مركو كوباد أمهد عليا مسؤولين تي كومينت كان سوى الدمدة طبعا سنة وأكتهين إن ما تقانا صومالي لما عملوا مدة طبعا سنة أمارتي سيو أركتهاي رجي سو معمولي سو وذي حلفة عاوان السجن مد إيه سيدو وناكسن وما تقانا صومالي isugu duubeen aad u jeedaan ayaan rabaa in u mahad celiyo. aniga horta waxaan ahaa nin ayaga ka mid ahaa la socday la shaqaynayay waana ogaa dhibka ku dhici jiray mar walba oy u dulqaadin jireen. waa rag ma taqaanaa waqtigoodii u soo huray. annaga ka gurub ahaan waa rag cusub baan nahay, waxna ka og community-ka intiisa badan suu u shaqeeya. ujeedadayna wax kale ma ahan, steepka hadda ay soo gaarsiiyeen inaan wax ku darnayaan rabnaa annaga insha allah. taana ma samayn karna haddii aanan helin garab xaggiina. garabka aad idinkaad siiseen dadkii hore ayaan rabnaa annagana na siisaan iyo mid kasii wanaagsan. waxaa kaloo ma taqaanaa haddana aan rabaa in as a group wax baa naga qaldami karaa, wax baa naga halaabi kara inaad idinkana maaragtay nala shaqaysaan, wixii aan ku qaldana noo sheegtaan, maaragtay si wanaagsan u wada shaqayno. garabkiina kale oon u baahannahay waxaa waaye meesha community wuxuu u baahan yahay financially in la iscaawiyo xagga membershipka in la iscaawiyo loo baahan yahay. ka mas-uul ahaan dhanka financialka markaan fiirino haddii adinka aanan garab inka helin waa nagu adkaanaysaa. marka waa mahadsantihiin. waxaana diyaar u nahay inaan qof walba oo soomaali ah oo gobolkan Queensland joogo inaan si siman ugu wada shaqayno. qof walba oo mataqaanaa baahi hayso oo annaga wax ka qaban kara inaan ka qabano, inaan la shaqeyno mataqaanaa hay-ado walba oo macnaha community wax ugu baahan. waa mahadsantiin. ilaahay mahadii waxaa ah in isbeddel uu ka dhacay guddi iyadoon dhiig ku daadan sidii soomaalida beryahan looga bartay aan maaragtay hiiftan iyo dagaal iyo bahalkeer. guddoomiyihii hore iyo raggiisina 10 sano markay soo wadeen ay u garteen in dhallinyaradu oo soo gaadhay halkoodii iyo meeshay kula waraagi lahaayeen ay ku wareejiyaan xilkii ay u hayeen Somali Community Association of Queensland. muddo badan baanu isla soo marray howlo badan. Somali Community Association of Queensland raggaa aan idiin sheegayay anageygani ka mid ahaa, annagoo weliba xubin toosa ahayn. waanuna ku faanaynay, waanuna iskaashanaynay, welina sidii baanu nahay insha allahu tacaala. kuwii horena sidii baanu isu garabsan doonaa. waxyaalo dhaqan oo aan guurin baa jira oo aan dhallinyaradu ku habboonaynba. kuwa cusubna wixii taageeraa aanu siin karno annagoo soomaalinimo ka duulayna ayaanu insha allahu siinaynaa. waxaan ku soo gabagabeynayaa ma aha waa maca salaama oo qura ma odhanayo, laakiinse idinkoo meeshiisidii jooga baad xilkii wareejiseen. markaa xil wareejiskaa waa idinku sii sagootigaynaa, laase waa inoo sideennii raggii hore. dhallinyarada cusubna waa soo dhawaynaynaa. ammaan hadda idinkalama duldhacayo, waayo raggii hore iyaga waxay soo qabteen baan ogahay iyo waxaanu isla soo marrayba. waxaan idinka leeyahay tallaabadoodii mara. aqoon waad leedihiin oo af ingiriisiga iyo waxaa ka badisaan oo jaamacadaha laga yaabaa inaad ka baxdeen. laakiinse tii waayo aragnimada iyagoo ay ka soo baxeen ma aydan lihidin. ha ka teginina, mar walbaba wax weydiiya, la tashada. wixii qalan iyo buug iyo Somali communitieskaa laysu tegay dee idinkaa qaabilsan, laakiinse actual dhab ahaan community-ga kicinteeda
saldhiggii waa inay weli usii ahaadaan. annaga iyaga gacanta nagu soo dhigaya wixii aada nooga baahataan oo dee aanu la gedannahay waa idiin ballan qaadaynaa sidaynu horeyba aanu u siin jirnay kaalintaanu ku lahayn. waxaa wanaaga hadda markii dhaweyd waxaan idhi iyadaan dhiig ku daadan bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay dhigan ummaddaa cidina isu qabsan. beri baan shir ka qayb galay la isugu yeedhay Somali community oo African house-ka meesha la yidhaahdo oo halkaa ku yiilay. su-aal baan weydiiyo waxaan idhi imisa community ayaa ka jira Soomaalida oo diiwaan gashan. 11 bay ii sheegeen malaa intii de waaba sii kordheenba hadda. waxaan idhi waxba ha naga qorinina ilaa aanu la nimaano hal community oo hana soo dhaweynina. waa maalin cadow jirtay bay ahayd wax lacagana ha ku bixinina. way dhici weyday laakiinse aragtidayada iyo kasbadayaana siisay inay markay soo bidhiiqday Somali Community Association inaanu haddaanu odayaasha nahay aanu gacan siino. sidii baanu isu gacan haysanay kuma faanayo taasa iyo taa baanu wada fulinay laakiinse waa waxaadoo la og yahay waana sii wadaynaa idinkana diyaar baan nahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaah. ku soo dhawaada hawsha cusub. marka koowaad waxaan u hambalyeynaynaa una ducaynaynaa insha allahu tacaala dhalinyarada loo dhiibay xukunka ama organizationkan la wareegtay. kolley ragga dhalinyarada raggan aqaano weeye Faysal iyo Asad iyo Aways iyo ragga la midka ah. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ha idinla garab galo wanaag badan la sameeya. odayaashii hore soo wadayna waxaan leenahay iyagana mahadsantihiin insha allahu tacaala. khaasatan iftin oo hadda la yidhahda iftin oo xanuunsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa caafimaad waasaca ilaahay subxaana wa tacaala inuu siiyo deg dega. intaa kadib innagu waxaynu nahay dad Soomaaliya. haddaynu dad Soomaaliya nahayna waxyaalaha ugu badan oo dhibka keenona kala dilo waa hadalka, qowlka, ereyga. ereygu waa waxa ugu badan oo dadka kala dhex gala. ereygu markaa wuxuu noqon karaa erey saxsan, erey khaldan, erey runa iyo erey beena intaba waa noqon karaa. wuuna isugu dhex jiri karaa. berigii horena waxaa la dhihi jiray warku dumarka wada laakiin hadda sanadkan ragga uga batay. baalku raggu ku wareegay. ilaahay subxaana wa tacaala marka dad muslima maadaama aan nahay wuxuu inoo sheegay xeer aan kula dhaqanno akhbaarta iyo aqwaasha imaanaysa. wuxuuna leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalah fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay haddii qof idin yimaado faasiqa isagoo war sida warkaa fatabayanuu caddaysta. warkaa isagaa caddaysta oo maxaad u caddaysanaysaa an tusiibuu qowman bijahaalah fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. si aadan qof kaloo muslina u dulmin oo markaa wixii aada qaadatay aadan uga qoomamayn. dhalinyarada yararka ah ee xilka loo dhiibayna waxaan leenahay aan kula dardaarmayaa laba arrimood oo muhiima. mid waxay tahay haddaad xil qaado eed baad qaadday waana lagu eedeynaya. marka waa inaad ogolaataan insha allahu tacaala in laydin xagxagto, in laydinku qaylsho, in wax laydinka sheego, in laydin tuhmo, intuba way imaanaysaa. haddii intaa aadan qaadi karinna haddee waxa weeyaan waa inaad iska tagtid. tan labaad waxay tahay waxaad samaynaysaan ilaahay dartii u sameey. sumcad iyo hebel ha ku arka iyo hebel ha maqla iyo meel ma gaarto. waxa keliya meel gaara waxa niyadda ah. hadday niyad tahayna way soconayaan. ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu xisaabinayaa waa adiga iyo ilaahay xiriirka idin dhexeeya iyo wax ilaahay kaa ogyahay. laakiin ilaahay kuu eegi mayo waxay dadku kaa aaminsan yihiin. magaaladoo dhan hadday ahlu janno kaa aaminsan tahay laakiin adigu aad ahlu naar tahay anfici mayso.
waxa ku anfacaya waxa ilaahay iyo adiga idin dhexeeya idan waxaan dhihi lahaa ilaahay iyo idinka waxa idin dhexeeya hagaajiya inta kalena waa laagsamayaan jazaakum allahu khayr waxaa xigo insha allah aan kusoo dhaweynayaa marti sharafta meesha lagu marti qaaday guddoomiyaha cabdulaahi maxamed ayaan kusoo dhaweynayaa insha allah jaaliyadda guddoomiyahooda aan kusoo dhaweyn doona hadduu al yihahdo soo dhawow guddoomiye بسم الله الرحمن الرحيم Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha midowdo khilaafka iyo dhibka ku jira Allah ka saaro dawlad cadli oo khayr qabta Allah ka dhaliyo doorashadeedan tufitan badan ee ayna ka dhicin ilaahayga boqorkii Allah ka yeelo sida maslaxaadeedu tahay ilaahayga boqorkii Allah ha waafajiyo ummadda islaam weeyaa Soomaalidu oo dhamaanteen badad islaam aynu nahay itixaam badan baynu laakiin lugaha la galnay ilaahayga boqorka waxaan ka baryaynaa inuu itixaamka ilaahay uu soo gaabiyo ogaadeeniyana ha xorowdo ogaadeeniyana gumaysiga Allah ka dulqaado intaa kadib shirweynaha waan salaamayaa mudanayaal iyo marweyn dhammaantiinba waan salaamay dadka Soomaaliyeed ee isugu yimid meeshan qof walbana meeqaankiisa ku salaamay salaadiinta aqoonyahanka barofesorada waxgaradka indheergaradka marwooyinka dhalinyarada rag iyo dumar dhammaantiin waan salaamay salaanta salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib dadka Soomaaliyeed runtii waa dad walaalaa weeye meel doon baa joogay ala kaashanta geesda baan dhammaantood ba ka dhaxeeyay ama hal gubaysto ama yaa gubaysanine Soomaalida calankana u wada taagan dhammaantood dhibkana Soomaalidu kuma kala tagto had iyo jeer hadda adoo meel ku dhibaataysan qof Soomaali suuqa ka tagaa way adagta marka runtii waa arrin xafladaho aad iyo aad u qiimo badan ragii muctarafka ah anu hadda 4 sano ku sii dhadhowhay runtii rag muddo kara maartay yaan ugu imid meesha ma sha Allah aad iyo aad qiimo badan u leh waana ku faraxsanahay ragga odayaasha macnaha isku baranay intaan imid wadanka oo muddo kara kubiteenkii macnaha uftin hogaaminayna runtii de guul weyn bay keeneen oo aad iyo aad aynu macnaha ay midhaheeda aynu xaqiiqadeeda aynu hayno bedel waxaa ka mid ah aaska waa xubinta ugu weyn weeyaan ee noo qabsoontay wey waxyaalo badan oo kalena macnaha way qabteen aad iyo aad baan marka ugu mahad celinaynaa yani guddiga 10 sano soo hogaaminayay runtii rag badan oo maartay garabyo badan oo aad u culusna way lahaayeenoo barfar darmaan iyo afjar iyo suldaan yani rag badan baa garab taagnaayoo talada maartay laga dab qaadanayay dhammaantoodba marka mahad celin ballaaran baan u samaynaynaa runtii waxaa kaloo jira dadka macnaha ayniga ee da-dii had iyo jeer dhibka samir badan bay u leeyihin way samraan macnaha laakiin qofka dhalinyarada waxaa laga yaaba 2 maalmood hadduu wareer yidhaha waa nagala tagba war wax waa ku wareeray nagala tagba war waa baan ku shaqo seegnay maxaa baan dhex dhigay inuu yidhaha marka dhalinyaradana waxaan kula talinaynaa inay adkaysimo inay yeeshaan waxaa la yidhi qof tabcay dhigwaana u tacabaa macnaha haddaad beer haddaad macnaha tawacdid badan يعني دقاقنا وعنا تدخل هذا تبعه مر والبابا وهو اللي بيكفى يديسنا يا معنا لكن هدي تعب لوايد محل كفى يديسنا بوامل مرن بدك أنا وحال يدي رجو حال يدي رجو وش اللي بقوله قال لي هبل نك الرجي معنا لما دو قال لي وحويان وويل كيس يحاس كيسلي هدي اللي إذا لو ما تقول جاي من ربلو كدر ama yani wuxuu ka dooday geedkii hebelaha si fiican buu u dooday haddii la yidhaah wuxuu odhanayaa ma odhanayo anaa ku dhalay ma odhanayo madaxa unbuu luli macnaha uu qirsan yahay raganimadaas haddii la yidhaha xaaskaagi baan maa soo martin oo si fiican bay noo soo deysana anaa u dhiibay ma odhanayo iyadana waa saxan buu qalbiga ka odhanaya laakiin hadduu in adeerki yahay oo la yidhaha in adeerkaba maanta ka dooday wareebel wuu fiican yahay laakiin anaa aqaano waxbaa ka yar siya buu odhanaya haweeney kale haddii la sheegana war way yar waalantahay ma odhanayaa see kale way fiican tahay macnaha markaa
waa laga yaabaa odayaashu dee inay kusoo sameen maaragtay rag noocaas oo ay saa tahay mar walbaba meesha aan hadda joogno iyo meel walbaba la joogaba muwaafaqada ay noo fiican xaflado badan oo macnaha sidoo kale oo dhaqankii soomaalida iyo dadka in lasoo mar walba lasoo waxyaana waa muhiim waa laga yaabaa dad badan oo communiteyni waxayna jiraan oo soomaaliyi laakiin dadaalku kolba kobta u bato unbaa loo badanayaa dadku dhalinyarada marka waxaan kula dardaarmaynaa inay mar walbaba matalaan dadka isu soo jiidaan yacno fursadaha maaragtay wixii maaragtay la samaynayo oo dhan wax laga wada tashado oo guudna inay macnaha ka dhigaan oo talado maaragtay mar walbaba ay talo badan inay noqoto dhammaanteen bana dee hal dana un baynu wadanahay hadda haddii la yidhaha xaflad soomaaliyaad jirta dadku kulliguu wada iloobaya habeenkaa inuu xafladdaa ka wada qayb galo ama waa laga yaabaa xafladdaa dadka loogu yeedhi waayo inay maalinka dambe dee dadkaa ka heesegtaan oo yidhahdaan xafladda maxaad u qarsateen la yidhaha ama arooska maxaad u qarsateen in la yidhaha yacni hal jira un baynu nahay dadkii marka dhammaan waxaan ku dardaarmayaa oo runtii xafladdan maanta sharafta leh ee caawan maarta aan joogno waxaan aad iyo aad ugu dardaarmayaa dhallinyaradan aynu maanta loo doortay inay yacni maamulka sii hagaan inay dulqaad badan inay yeeshaan dulqaad badanoo sidii odayaashu ay macnaha u dulqaadanayeen mar walbaba inay u dulqaataan odayaashii iyo mar walbaba dadkii talada markii horeba hagayeyna inay sidii maaragtay inay hawsha iyagana aynu u garab taagnaana dhammaanteenba rag iyo dumarba wixii dareen macnaha firfircoonida maaragtay qofka dee markuu ayni noqdo mar walba xanuun iyo tawso iyo wax badan baa kusoo baxay laakiin qofka dhalinyarada ahee firfircoon inuu mar walbaba inuu saa sameeyo ilaahiga boqorkaana mar walbaba dad islaama oo macnaha diinta islaamka aynu haysanno unbaa badbaadadeennu waa taa weeyaan yaynaan fududaysanin diinta waa inaynu ku adkaano waa inaan carruurteenna iyo dadkeenna iyo waxeenna o dhan waa inaan ku tababarano weeyaan hadda matalan yacni dhaqankan aynu ku dhex jiraa saamayn badan buu dadka ku leeyahay marka saamayntaa badan waxaan kaga badbaadi karaynaa inuu dadku diinta islaamka had iyo jeer inaynu xoogga saarno alla ka cabsiga ilaahayga boqorka unbaa wax badbaadiya laakiin inaad adigu tidhaahda anaga xariif oo anaa kan oo anaa waxana laguma badbaado laakiin alla bariga badan iyo diinta oo cuskatid unbaa ilaahayga boqorkuu kugu badbaadinaya oo wixii shara ilaahay kaagaga badbaadinaya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدم ما حسنتها قدومي عبد الله ما شاء الله نحن كجسي جرنا آدم ما حسنتها دردارنكي الشيخ مع عبد الله وعدسي سيد دمان بوشيدو إديلبو يسجارهان السيبر دلنيرة ما رتي هذا حلك كوري جيسو آدم ما حسنتها كل دلنيرة واد مغلسين دعادي دردارك الذين ما رتي الذين سجيدي كوي قاتو أو كو عمل فرنا الله هذي كديجو annagana insha allah inaan maaragtay garbihiina noqono ayaan isku dayana insha allah aan garab taagnaano aan maaragtay hawsha dhexdaan usii jireen waxaa lii sheegay insha allah inay casho jirto cashadana insha allah ay maaragtay fadhi anagoo fadhino ayaa la keeni doonaa insha allah marka maaragtay sidii linekii iyo waxyaalaha ma jiri doona nin walba asoo meeshiis miiskiisa fadhiya ay cashada loo keeni doonaa sidii lii sheegay marka arrintaasna kasii warhaya insha allah waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo insha allah waxaan kusoo dhaweynayaa stageka gabar maaragtay maasha allah dadaal badan xildhibaanad Layla abuukaran rajeynayaa marka insha allah Layla kusoo dhaweynayaa stageka gabar yiraahdo hooyooyinka gabdhaha dhalinyarada culimadiinka Soomaaliyeed aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa mahad inaan u celiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Queensland gudoomiyihii hore iyo dadkii la soo shaqeeyay iyo sida sharafta badan ee xilka ugu wareejiyeen generationka cusub marka change of generation baa dhacay waa wax aad u wanaagsan dhalinyaradu odayaashu waa lafdhabarka Soomaaliyeed taladii iyo maaragtay inay isku hayaan ummadda bay mar walba u taagan yihiin marka dhalinyaraduna aad bay u fiican tahay in iyagiiba energy haya inay ummadooda u shaqeeyaan marka aad bay farxad ii gelisay dadka dhalinyarada Faisal
aways iyo asad marka hawl badan baa idin sugaysaa laakiin waxaad ogaataan dadka soomaaliyeed ee inta meesha joogtay inta maqan inaanu idin barbar taagannahay ilaahayna xilka aad qaadeen inuu idin fududeeyo marka insha allah khayr bay noqon marka ummadda sida daacadnimada inaad ugu shaqaysaan ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu idin fududeeyo dadka soomaaliyeedna ilaahay inuu mideeyo meel walbaba ay joogaan ee xaqana arkaan diintooda dhaqankooda mar walba inay ku adkaadaan ilaahayna wadankii aanu ka soo jeednay inuu noo dejiyo oo wanaagiyo marka insha allah khayr marka intaas baan ku dhammaynayaa waxaan sii wadanaa insha allah hadda u yeerayaa maama cabdiye axmed ayaan stage ugu yeeraa insha allah iyadana inay soo jeediso darca بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mudanayaal marwooyin dhalinyarada culimada dhammaan waxaan leeyahay marti sharafta ee kasoo qayb gashay halfadan quruxda badan waxaan leeyahay mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allahu tabaaraka allahu baan leeyahay ummadii kasoo shaqaysay xalfadan soo agaasintay xalfada quruxda badan waxaan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aada ugu mahad celinaa guddoomiyihii hore mudane aftiin ibraahim iyo maxamed daahir maasha allahu baan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin in badan baad ummadda usoo halganteen in badan baad isku xirteen soomaali weyn maasha allahu ilaahay ha idan darajeeyo haddana si sharaf iyo karaamad leh ayaad u wareejiseen xilkii waxaan leeyahay inta xilka lagu wareejina aada iyo aad baan idiin soo dhaweyneynaa hambalyaan idan leenahay guulaysto baalashii aad ku buubi laheedeen waa bulshada soomaaliyeed inaad mid u noqotaan inaad dhex u noqotaan inaad u dhaganuglaataan inaad u dhabar adeegtaan ayaan idinkula dardaarmaynaa maasha allahu tabaaraka allahu baan leeyahay waxaan rabaa in yaroo dee calanka ku saabsan inaan ka tuuro buraanburna ma aqaane insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim cawaalow calanka iyagow carshiga ka nuur cawaalow calanka iyagow cadow kuma hantiyo cawaalow calanka iyagow cadow kuma hantiyo cirkaad u egtahay rabbiyow laga cabsadaa waxaan soomaaliyay seexan kari lahayd waxaan soomaaliyay seexan kari lahaa oo dunidu waa si qalbigu isamaan lahaa markay soomaali weyn say rabtaba heshaa magaca soomaaliyeed baan ku miiranahay oo magaca soomaaliyeed baan ku meel maraa magaca soomaaliyeed kaan ka dhidhino oo magaca soomaaliyeed kaan u dhimanino dhaqaala ninkaan ku bixin dhiigga kaan u hurin dhurwaayada way cunaan oo way ku dhiiradaan dhurwaayada way cunaan oo way ku dhiiradaan dhafaradu way gotaan dhiigbax waa u halis dheeldheela u qaadan hadalkaygu dhaxalgalkee wacdigii iyo waanada kugu qaatalaha naga yeelo waxaan rabaa inaan haddana halka ku casuumo nabadoon suldaan fadlan soo dhawaaw بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soomaalida ayaa intaan dambe waxaa badnay markii la isu yimaado in la yidhaahdo maanta waa maalin weyn shirarka soomaalida marka meel kastoo la isugu yimaado waxaa la dhaha maanta waa maalin taariikhiya laakiin xaqiiqan caawa waa habeen taariikhiya lianna 80 jir
gartay oo yidhi warbas weeye anuguye kaalay wiilkii yarka ahaa 20 jir oo hawshay qabo waa taariikh cusub weeye haddii marka ay saas ahaan lahayn oo soomaalida saas ka heli lahayn oo nimanka nagaa waaweyn oo 70 jirada iyo 80 jirada iyo ay garan lahaayeen or waa daasheen bal wiilasha Chinese wax badan baa noo hagaagi lahaa waxaan leeyahay odayaasha waa u mahad celinayaa hawsha soo qabtay maasha Allah waqti dheer bay soo qaateen wax fiican bay soo qabteen waxaan leeyahay ilaahay khayr ha idinka siiyo wiilashana waxaan leeyahay soo dhawaada odayaashu waxay qabteen waxa ugu muhiimsan uguna horeeya inay keeneen idin soo gaarsiiyeen inaad shaqada qabataan la wareegtaan adinka marka hadda ma idin amaanayno laakiin waa idin soo dhaweynaynaa waxaan idin ballan qaadaynaa inaan la shaqeynayno maalinta dambe aanu ka hadli doonaa dhaliisha iyo amaanta iyo waxaas gadaal baan ka dhiganaa laakiin hadda waxaan leenahay waa ilaahayna waa idin baryaynaa waan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idin la shaqeyn doono haddii alla oday shaqo ma waayo asagu labadan kaala wax kala dheh iyo kaala hawl baa u taalla mar walba asaga waxa shaqa la'aanta ku dhacda waa dhalinyarada mostly marka insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin sheegayaa Soomaali baad u tihiin community Soomaalida Brisbane degan baad madax u tihiin waa jaanis waa wax weyn weeye 20 jir adoo ah inaad u soo istaagto dadka hortiisa inaad tiraahdo anaa madax waxaan u ahay ama wakiil ka ahay Soomaalida soo wax sahlan ma aha arrintaas marka inaysan idinla fududaan wax badan baa community ka khaldan aniga hadda halkaan 15 sano joogaan u malaynayaa Brisbane 15 sano waxbaa khaldanaa baa lahaa mar walba la lahaa laakiin waxaad moodaa caawa inay ka duwan tahay habeenadii kale weli ma arag sidaan oo kaleeto fadhigaan oo kaleeto jawigaan oo kale wajiyadaan oo kale oo isugu imaanaya inay hal meel u wada socdaan wiilashiina yararka ahay marka intaas waxay raalli ku noqdeen inaad hogaamisaan hogaankuna wax sahlan ma waxaad ka dhex shaqaynaysaan waa dadka dhexdiisa waay ma aha banaanka ka shaqayn maysaan wax kale gurigeygaad ka shaqaynaysaa aniga gurigeyga xaafadayda caruurtayda guryahaana aad ka shaqaynaysaan insha Allah waa idin la shaqaynaynaa insha Allah haddii alla idmo waan idin soo dhaweynaynaa waan idin ducaynaynaa insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa in odayaashina waxaan leeyahay thank you waqtigiina waa soo qaadateen hawl fiican baa qabateen maasha Allah xasan ninkii la yidhaahdo cali cadow oo iftiin maasha Allah hawl fiican baa soo qabatay annana ayana waa la shaqaynaynaa adinkana waa idin la shaqaynaynaa insha Allah waa albaadsintii aad u bahansan yahay suldaanka waxaa kaloo rabaa inaan u yeero adeer cali cadow adeer soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله نقل قينا أبوري ماشى تنسوه كان هبين كان عاوة موضوع عن صعدة يقول كل سيئ يا مهات أسقناتي أنت أكذب ولا رجال وحي لديه لا يهرع الله يجري wixii la sheegi lahay hor loo sheegay wax cusub aan hadda soo kordhinaa anigu ma jirto waxa kaliya u soo istaagay ragga xilkan hayay odayaashii 10 sano ku dhawaad soo hayay oo si qayle la'aan hadal la'aan buuq la'aan طبعا tusaale lagu dadan karo ayay Soomaalida inta kale u yihiin mahmaahda inay waanigi yiri dabkii baxaya dab lagu qabsadaado waxay mudan yihiin in iyaga garab iyo gaashaanba la siiyo oo la taageero waxaan kaloo u hambaliyaynayaa odayadii iyo waxgaradkii soo hogaaminayay
muddada badan ee ku wareejiyey dhallinyarada oo dhiigu cusub ah oo ku wareejiyey macnaha faysal iyo aways iyo asad anigu walow aanan dhallinyarada aqoon fiican oo shaksiyana u lahayn haddana maadaama ay hayaan awooddii dhallinyaronimo iyo firfircoonidii iyo aqoontii iyo fahamkii waddanka waxaan qabaa inay guul ay ka keenayaan oo caana ay kaga keenayaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب حفلة دروا حفلة تاريخية وآديات مهم نوعها بركة وروحان هم بلينا يا دليرة القصب حلكة لو ديبي دليرة وحلكة لو ديبي hadda idin ammaani mayno laakiin waxaad la timaadaan baan fiirinaynaa waxaa kale oonu sagootiyeynaa oo u ducaynaynaa maamulkii hore ee soo gaadhsiiyey meesha wanaagsan ee uu hogaaminayay duq iftin oo hadda naloo sheegay dee inuu xanuunsanay isagana allaha caafiyo markay sidaas tahay annagu haddaanu nahay bulshada waan idinla shaqaynaynaa waan idinla shaqayn jirnay dee sidun baan idin garab taagannahay haddii alla idmo sababta waxaa le far keliya fool ma dhaqdo community keliya waxaa weeye meel loogu saagaaga leh ee xafiis leh ee isku xidhan ee waxaa weeyaan maanta soomaali magaceeda ku hadli kara ama soomaali waxaa wax la taaban kara u qabtay waa communityga waxaa weeyaan Queensland hadda waxaa weeyaan isbeddelka sameynaya marka kuwii hore waxaa weeyaan xilka halka soo gaadhsiina way mahadsan yihiin kuwa dambana waa la shaqaynaynaa insha allah marka aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة نساء ورجال. سلام بعد قد انت هذا الشيء بمعناه كما ان هذا المهين هاي ركبه هذا لي دمان انت ماشي اسكو ما هدي ونسي الرجال بابا سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام بعد قد وحال معناها وهم بليين يا دليردي اساستي halka rag isku meesha isku keen gaarka dad intaan ruuxa ilaahay baa mahad nimankaas ayta ayaan u mahadnaqayaa mahad bacdigeed waxaan u mahadnaqayaa community-kii hore odayaalkii hore oo xilka wareeji oo ugaas aftiin ayaan u mahadnaqayaa iyo qoonka la shaqaynayo on ani ka mid ah marka allaha caafiyo waxaan isiin baan yiri inaas imaaday baan jeclaay marka allaha caafiyo marka taas waa tii ducada community-ka soomaalida weyn meeshan caawa iskugu imaaday aad iyo aad baan macnaha ugu hambalyaysay anna aan ugu hambalyaynaya inay gool fiican laga ciyaaro Queensland oo midnimo Soomaali la raadiyo oo isku xir Soomaali la raadiyo oo Afrikaankii iyo Soomaalidii meeshan joogto community-ka ay macnaha ay community-nimadooda ay ka maragaliyaan oo meelo fog macnaha dhagna meel dheer ay ku dhacdo dhagaxna meel intaas iyada ayaa macnaha inay macnaha eeshii ay horay odayaalka ay soo gaarsiiyeen iyo dhallinyarada kalena haddana kasii ambaqaadaan oo macnaha ay xawaaradooda macnaha ay si wanaagsan ayagana ay u wadaan baan anigana ku soo dhaweynaya in lala shaqeeyo xilli qaaday eed qaad buu yiri marka nin xilli qaaday eed qaad weeyo marka xilkaas in ilaahay la fududeeyo dhallinyaradaas annagana aan la shaqayno ayaan ku soo dhaweynayaa wixii arin fikradayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad u mahadsan odayaashii 10 sano ku dhawaad soo hayay oo si qayle la'aan hadal la'aan buuq la'aan ayar u wareejiyay yaan horta aad iyo aad ugu mahad celinayaa sababtoo ah Soomaalidu xilka aad bay u jecesha
nin xilki adiga aada haysay ka tag oo wiil yar maaragta maxaan ku rahdaa kuwaada la mida ku wareeji laleeyahay oo oggolaanaa siduu ku jira anigoo kolley u malayn maayo si sahlan in lagu arkayo wayse dhacday sidaa awgeed ayay mahad u mutaysteen iyo waqtiga dheeraay oo maaragta maxaan ku rahaa shaqada ay soo hayeen ragga loo dhiibayna raggaas way mahadsan yihiin ragga loo dhiibayna waxaan leeyahay howl culus ayaa maaragta maxaan ku rahdaa laydiin dhiibay walooyinka reegadoodka waxaa jiraan libaax yow dheldheel ma aha libaax baan noqona oo micyo dherdheer aan la soo baxo sayn baan la soo baxo daacufaan yeelanayo wax sahlan ma aha lamana noqon kara sidaasay ugu maamaahaan libaax yow dheldheel ma aha war shaqadaan shaqo sahlan ma aha la idiin dhiibay ilaahay gawayne waaxidkaah ha idiin fududeeya allaha idiin fududeeya mid qayli la-aan buuq la-aan isxaxgasho la-aan oo wanaag ku socota oo sidii ragga u soo wadeen si kasii fiican weliba u socota allaha idinkaga dhiga hawshaan culus oo caawa aad samayseenna aada iyo aad baad ugu mahadsan tihiin soomaalidu waxay ku maamaadaa tin madow ayay tala ku hartay tin madow ayay tala ku hartay annaga waa naga dhammaatay raggaynaan waaweyn waxaan maqli jiray hebel cimri biliseed uu marahayaa hebel cimri biliseed ayuu marahayaa waa markuu qofku uu gabo wadad baasaa ku maamaaha annaga waxaan mari haynaa maarata maxaan ku rahdaa qaatumo khayr allah nasiyaan leenahay raggiinaan yaryar oo dhallinyarada oo shaqada loo dhiibo mar labaad waxaan idin leeyahay shaqada allah idin fududeeya waan idin salaamayaa marti sharaf kasoo qayb galay meesha tanna dhammaantiin waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idinku mahadcelinayaa qaabka sharafaysan oo dimuqraadiyeed xilka gudinimo loogu wareejiyey dhalinyarada weli ma arkin guddi ay odayaal u badan yihiin oo dhalinyaro xilka ku wareejiyey haddaad maqli jirteen oday hebel waa nin garaad leh caawa waxaan isugu nimid in aan markhaati ka noqono odayaasha garaadka leh bulshadooda dhaqanka iyo dhaxalka kudayashada mudan ay uga tagaan adeer iftiin iyo guddigiisa si kal iyo laab ayaan idinku mahadnaqayaa shaqada aad hagar la-aan iyo mushahar la-aan aad uga soo qabateen soomaalida degan Queensland in badan ayaan howl isla soo qabanay si dhallinyaradeena khilaafkooda loo xaliyo oo dhibaatooyinkooda xeer af Soomaali lagu xalin karo kuwa lagu xalin karo lagu xaliyo jazaakallah waxaan kaloo casuumayaa the president of QACC Mr. Benny. I just want to say, first of all, congratulations to all the Somali community members in Queensland for today. This is the day that every single member of the community should be proud of yourself. We don't see much of this quite often in our African communities. I'm very proud of your elders because they actually show a vision and leadership. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان ضدك إسلام كا أو الصوماليات وهل كان السوي يمد دمانتين وان إذن سلامي سلامة الإسلام كان إذن سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسرحية وكير فرنحاه هذا الكائن قال اللومي marka banaanada joogaan roonahay mar hadaa la ii yeeray dadkii hore hadlay hadalkooda quruxda badna ayaanan hadlaynine waxaan rabaa inaan soo gaabiyo waxaana ku soo gaabinayaa raggii soo hogaamiyey committeegan oo la sheegay 10 sano inay u shaqaynayaan ummadda Soomaaliyeed oo soo gaarsiiyay heerkan hadda la jooga caawo waxaan leeyahay anoo raacaya dadka hore mahad celiyay waad mahadsantihiin kuwa haatan loo dhiibayna waxaan leeyahay xil baa la idiin dhiibay waana sida loo sheegay waxaa la yidhi xil nin qaaday eed qaad
xilka waa weyn yahay waxaa la yidhi cirka iyo dhulka iyo buuraha loo bandhigay mas-uuliyadda way diideen gacantay ka taagteen dabeetana waxaa qaaday aadanaha marka xilka saasuu u culus yahay la idiin dhiibay ilaahay ha idinku asturo in sha allahu tacaala waanu idiin ducaynaynaa allah idinku asturo waxaa kale oon idinku dardaarminayaa wiilal yahow dhallinyarada hoos soomaaliyeed u shaqeeya soomaali u shaqeeya midnimadeeda ka shaqeeya wixii ka qalloocan toosiya waxaa laga dayrinayaa caawa ood maqlayseen dhallinyarada soomaaliyeed oo yar yar ka ah oo laga yaabo inay daadka raacaan dad waxaa u ah communitiga iyo inta dhashay oo iskaashada lambarkiina ka xagsada halkaas dadkaad u shaqaynaysaan waa dhallinyarada jiilka ahoo soo kacaya oo soomaalida yararkaa weeye dadka waaweyn oo aniga iyo inta iga weyn iyo inta ila mid eh retired waayo ayaga waaba iska fadhiisanayaane talada iyo maahmaahyada iyo sida wax loo qaban jiray unbay idin fari doonaane hadduu ilaah yidhaahda aqoontiinna iyo aqligiinnaba ummadda soomaaliyeed uga shaqeeya midnimo soomaaliyeedna ka shaqeeya soomaalidana waa qalqallooc badan tahay oo hadda lafteeda waxaa laga yaabaa in ay iswaafaqsanayne kuwii isu keeni lahaa oo midayn lahaa inaad noqotaan oo biladaas qaadataanna ku dadaala waan idin salaamayaa waxaana leeyahay soomaali meel kastoo joogtaba ha israacdo qulubteedana ilaahay subxaana wa tacaala tii israacda allaha ka dhigo dalka yagii allaha noo dejiyo meeshaan joognana khayrkeeda allaha na siiyo sharteedana allaha naga aamaansado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay nabadda daawud caaw haweenkii fari kama qodna weli waxaa inoo dhiman barnaamijkii muusigii iyo madadaalada balse waxaan ka hormarinayaa inaan halkan ku casuumo nabadoon xasan mooge nabadoon soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيب قلياشة حفلتان بلارن حلو وريكينتا كسو قيب قلي هوله دي أغسو تغي مارتي سو أيدي بانو مهد علنا دمانتين الله مهد له ثم dadkii ka soo qayb galay baan dhammaan u mahadinayaa insha allahu ilaahay idinkii intaa markaan ka gudbo kolley waxaan filayaa arrinta meesha ka dhacaysa oo la isugu yeeray waxaa weeyaan waa xil wareejin kumatidii 10 sano soo shaqaynayay odayaashii ay hayeen ee ay soo gaarsiiyeen saaka insha allahu ilaahay idinkii caawa ay ku wareejinayaan dhallinyaradii ee ayaga laftooda soo tababareen ee ay la shaqaynayeen soo tababareen ku wareejinayeen baan u mahadnaqayaa intaa 10 sano ayna murun ka dhicin ee isqabqabsi ka dhicin raggii soo waday intaa baan ilaahay ugu mahadinayaa waa mahadsan yihiin kuwa xilka loo dhiibayna kuwa Soomaali u shaqeeyo ee maaragtay Soomaali mideeya ee maaragtay dadkooda wax u qabto ee alla ku guuleeya allaha ka dhigaan leenahay meel aad joogtiinba Soomaaliya inay israacda baan ilaahay u baryaynaa dhammaantiin waa in salaam hadalkayga ma badna khayr baan idin rajeeyay dadkii ka soo qayb galay waa idin mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah kolley waana loola dardaarmay khaasatan dhalinyarta hadda xilka qaaday aad baa loola dardaarmay kuwa dardaarankaa qaada allaha ka yeela haddana waxaan u gudagelaynaa barnaamijkeenii madadaalada iyo muusiga waxaanu ka casuumayaa banaankeena axmed carab
kulayliyo baraf male dhulkeenu inaga halayne Soomaaliyey hoy hoy walaalaweya deegaankiisa hodanka loo wada hamuume anfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu inaga halayne Soomaaliyey hoy hoy walaalaweya deegaankiisa hodanka loo wada hamuume haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga oraneelayo hantiyay macaan waa midaan hoy laga oraneelayo hantiyay macaan